كوي طبعا قف أياد لما تإنك بدن صدح بقولنا نوعية أي إسبتالة لا جيفان bandhig faneed musiibo ku habsatay maxaa ka dhacay gobolka Texas ee wadanka Mareykanka. This morning, Houston reeling after deadly chaos at a music festival. Deadly concert in Houston. Travis Scott and concert promoter Live Nation are among those named. Abdikhafar Gamadid oo idin leh meel walba u joogtaan soo dhawaada. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa musiibo ku dhacday bandhig faneed uu jeedinayo fanaanka caanka ah ee Travis Scott. Musiibo ayaa ku dhacday taageerayaal ka soo qayb galay show uu qabsaday fanaanka caanka ah ee Travis Scott. fanaankan ayaa bandhig faneed ku qabsaday gobolka Texas. fanaanka waxa uu leeyahay taageerayaal aad u fara badan. showgiisan waxa ka soo qayb galay dad aad u badan oo gaaraya ilaa 50,000 oo qof. bal waxaad qiyaasataa dadka intaas ay cadadoodu la eg tahay oo hal meel iskugu wada keenay. meesha uu fanaanka showga ku qabsaday waa meel open ground ah oo aad u baaxad weyn oo loogu talagalay fanaaniinta inay kula kulmaan taageerayaashooda. laakiin fanaankan waxa hal mar u imaaday oo showgiisa ka soo qayb galay 50,000 oo qof. waqtiga uu fanaanka stage-ka soo fuulay oo uu heesta bilaabay waxa hal mar isbedeshay xaaladda. qaylada samicadaha aad u waaweyn, qiiq iyo holaca hawada lagu sii deynayo, iyo taageerayaasha oo qaylo iyo boodbood bilaabay iyagoo marba dhinac oo la dhacayo heesta. xamaasadda ayaa la tagtay oo waxayba kala garan waayeen inay riyoonayaan iyo in waxaan ay wax dhab ah tahay oo ay meesha joogaan. daqiiqado yar kadib meeshii showga qosolka farxadda iyo niikadaba ka jirtay waxay isku bedeshay sidaan. kun oo qof oo sidii xoolihii hal meel lagu soo wada fasaxay waxay bilaabeen inay isbuurtaan oo isku tuntaan. naqaska ayaa ku dhigay midba midka uu ku xoog weyn yahay waa uu ku dul istaagayay si ay u helaan oksijiin ku filan. waxa ay ku qaylinayeen isaacideeya ma neefsan karo. laakiin midda la yaab kale waxay ahayd fanaanka iyo kooxdiisa inay iska sii wateen heesta iyo baashaalka maadaama ay adag tahay in la ismaqlo qaylada iyo sawaxanka awgeed. inta waxaa soo dhibaato ah ay dhacayeen fanaanka heestiisa ayuu iska sii watay. Houston Fire Chief Samuel Pena is pointing a finger at Travis Scott for not stopping the show. He can certainly pause that performance. ilaa ay gabar soo fuushay stage-ka uu fanaanka joogay kuna qaylisay heesta hala joojiyo dad ayaa dhimanayo. ugu dambeyntii boolis ayaa loo wacay waxaana imaaday gurmad. laakiin fanaanka Travis Scott waxa uu ka bixiyay raaligelin wuxuuna sheegay dadka meesha ku dhintay eheladooda inuu siin doono lacag. laakiin markuu iska soo duubay muuqaalka raaligelinta waxay u muuqatay sidii nin cabsan ama qof hurdaysan. I just want to send out prayers to the ones that was lost last night. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. You know, my fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. And anytime I can make out, anything that's going on, I stop the show and, help them get the help they need, I could just never imagine the severity of the situation. We've been working closely with everyone to just try to get to the bottom of this. The city of Houston, HPD, fire department. muuqaalkan raaligelinta dad badan ayaa ka xanaaqay waxayna sheegeen fanaanka inuusan wax weyn ka soo qaadan dhimashada taageerayaashiisa. dadka meesha ku dhintay waxaa ku jiray wiil 14 sano jiro waxa uu nala socday aabihiis. aabihii waxba ma gaarin laakiin wiilka meesha ayuu ku dhintay. fanaankan Travis Scott showgiisa marar badan ayay sidaan oo kala dhacday. sanadkii 2017 fanaanka waxa uu sameeyay asagoo show qabanayo ayuu taageerayaashiisa fasaxay una sheegay inay ka soo gudbaan fanska loogu talagalay inaysan ka soo gudbin taageerayaasha. waardiyaashan wuxuu amar ku siiyay inay fasaxaan taageerayaasha. dadka ayaa isa soo dhaxgalay isbuurtay waqtigaasna dad badan ayaa meesha ku dhaawacmay. haddana sidii si ka daran ayaa dhacday oo waxaa dhimatay 11 qof 300 qofna waa ay dhaawacan tahay. haddana fanaanka waxaa loo
haystaa musiibada meesha ka dhacday in mas'uuliyaddeedu asaga dusha saaranayo maadaama waqtiga dhibaatada dhacaysa baashaalkiisa heestiisa iska sii watay. taas ayaa noogu eg tahay muuqaalkeena aan kaga hadalnay fanaanka Travis Scott showgiisa. Haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow channelkana subscribe dheh si dhiirigelin noogu noqoto. Waqtigaagana waad ku mahadsan tahay.